mana uu ilaan karo wuxuu kaloo yiri waxaan qabsanayaa meesha la yiraahdo Laas Caano adeer waxaan maleeyahay hadalka waa ku riyootay runka ma ahan Laas Caano iyadoo aysan joogin ciidamada ku hareeraysan oo buuraha waxa weeye afarta koona ka ah ciidamada degan oo daarood iyagoo aysan joogin baa waxa ka saaray shacab waxa weeye anaga xageena la geenayaa baa tiri adeer waxa weeye jamhuuriyaddu waa iska xumaanaysaa nin xun oo laalush qaata oo nin ku daba nool baa tahay hadeer markii jamhuuriyaddu iska xumaatana waxaad raacaysaa geela boqor buur madow oo daaqaya meesha la yahay dalyo iyo baadi qariye iyada isaga lagu raacinayaa baan ku yiri waxaan kaloo ku darayaa oday aabba oo waxa weeye nin waayeela aba hadlaayo oo maalmood wuxuu leeyahay wiilkaygii ina cambaashaa waxa weeye khalday oo wata hubkaygiina waxa weeye difaaca kan ku sugan yahay anna waxa weeye difaaca kan aan joogaa waa ka waxaan leeyahay adeerkaas wiilkaagi maaha anaga wiilashaadiya maanta inta Laas okay soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim warwaad salaamay bahda saxaafadda iyo qarda media bahda saxaafadda iyo saaxiibkii fantastic dhamaan waa idin salaamay bacda salaan halkan waxaan kaloo ka salaamayaa saraakiisha ciidanka SSC ciidamada kala duwan ee fadhiya Laas Caano iyo waxa weeye inta ku hareeraysan aad iyo aad baa u salaamantiin bacda salaan waxaan halkan kala hadlayaa wiil xun oo meelaha kan ka soo qaylqaylinayo oo ku hayo waxa weeye korontada leerkaan joogaayo maxaan ku yiraahdaa harti baan hayo maxaan ku yiraahdaa marka waxa weeye korontada leerka horta waa tan hadda anagu aanu joogno mana uu ilaan karo wuxuu kaloo yiri waxaan qabsanayaa meesha la yiraahdo Laas Caano adeer waxaan maleeyahay hadalka waa ku riyootay runka ma ahan Laas Caano iyadoo aysan joogin ciidamada ku hareeraysan oo buuraha waxa weeye afarta koona ka ah ciidamada degan oo daarood iyagoo aysan joogin baa waxa ka saaray shacab kacay oo godooday waxa weeye adoo lagu eryaayay buuraha laga saaray bariiqahaagii baan ku hadeer baan ku wali waa muuqdaanin marka maanta sida aad ku qabsanayso sidee tahay waa riyo hadalkaas mid kale aan ku sheegayaa hartinimada aad sheeganayso adeer horta ficilkeed kaama muuqdo adiga iyana cambaashaha kula socda iyo kuwa waxa weeye khaladeenba anu waxaan bis oran karaa dad macnaha loo jawaabi karo ama hadal lagu khasaarin karo maba ahaba musujuudaan baa isixirday marka waxa weeye qaabka hadda ay ku jirtaan waa mid aad ku soo afjarmaysaan sida ugu dhaqsaha badan tahay waa mid aad ku soo afjarmaysaan masiirkiina dambana aan waxa weeye wax macnaha waxa weeye raada aan ku lahayn waxa la 20 jirka geedka beerato baa 60 jirka harsataa war maanta nin dadkiisii iyo dalkiisiiba baan ku waxa weeye weeraraya asagu oo gubaya oo dab ku shidaya birim xul la sii imaanaya waa waxba mid kale aan ku sheegayaa waxa tiri dawladda qaranku shaqadeedii waa haysataa wadankuna waa nabadgeliyo wadanka dabka ka shideen baa ka shidan wali insha Allahna waa dami doona adiga iyo kuwa waxa weeye kula aqligaaba goortii laga xoreeyo gobolku waxa weeye nadiif noqdo waa dami doona dabka ka shidan dalka ka shidan oo idinku shalaa ka shideen nabadgelyona ku soo noqon doona waxa tiri waxa weeye dadkan gadoodayo oo qeylinayo oo waa dad reer Soomaaliland oo shalay wax nagu darsaday shalay hadaan wax ku darsanay waan ku maanta aan idinka soo caanay waayo dad wax lagu darsan karo ma ahin dadkii wax lagu darsan karo ba wax lala wadan karaa oo wax lala waxa way fahmi karaa laakiin waxa noo muuqatay maantay Soomaaliland shalay haday waxa weeye wax la isku darsaday ahayd maanta inaysan naba waxa weeye anfici karin shacabkii joogay ka gadoodeen dadkooda madax dub lagu laayay dalkooda la sheeganayo hadee waxa soo dhaweyd dhulbaanta inta hadana anaga ale baa ka soo dhaweyd Muuse Bixi marka ma aqbali karno taana waxa weeye gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn waa la xoreynayaa sida ugu dhaqsaha badan baa loo xoreynayaa inta markii aan ka soo gudbo waxa weeye anaga xageena la geenayaa baa tiri adeer waxa weeye jamhuuriyaddu waa iska xumaanaysaa nin xun oo laalush qaata oo nin ku daba nool baa tahay hadeer markii jamhuuriyaddu iska xumaatana waxaad raacaysaa geela boqor buur madow oo daaqaya meesha la yahay dalyo iyo baadi qariye iyada isaga lagu raacinayaa baan ku yiri adiga iyo waxa weeye inta kula socotaba waayo hartina uma baahna isaaqna uma baahna nin walaalihii iyo dimaashiyaashiisii iyo hooyooyinkiisii iyo caruurihii iyo dadku shalay xilka u qaaday oo shaatiga u gashaday oo yiri dawlad baana maanta ishii ka madaxa kala dhacay adeer cidna ma anfaco waxa weeye reer Soomaaliland waxa leeyahay
iska ilaaliya waxa weeye kuwii uu la dhashay oo waxa weeye de ma qaanu waxa weeye midaan waxba si ahaaye kuwii uu la dhashay buu soo gubay deedikana inaa fiic maayo iska ilaaliya inta markii aan ka soo gudbo waxa weeye gobolada SSC waxa weeye waa la xoreynaya waxa weeye meel fiican baa xaaladiisu maraysaa Muuse Juudaan iyo inta uu watana maalin dhow waa isbaranaynaa maalin dhow sida ugu dhaqsaha badan tahay waa isbaranaynaa waa xoreynaynaa ilaa aanu geeyno baan kula labada gaatama aanu dhaafino ka soo hari mayno aad iyo aad baa u salaamantiin meel kasta aad joogtaan waa anigu Cali Cismaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan kaloo ku darayaa oday aabaa oo waxa weeye nin waayeela abaa hadlaayo oo maalmood wuxuu leeyahay wiilkaygii ina cambaashaa waxa weeye khalday oo wata hubkaygiina waxa weeye difaaca kan ku sugan yahay anna waxa weeye difaaca kan aan joogaa waa ka waxaan leeyahay adeerkaas wiilkaagi maaha anaga wiilashaadiya maanta inta laascaano iyo inta ku hareeraysan xoreynaysa kuwaasaa wiilashaadiya kuna anfacaya kaasu ku anfici maayo waxa weeye uma leexsan hanqarac lagu ma dhutiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh